xubnahan oo isugu jiray aqoon-yahan siyaasiyiin iyo ganacsato ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiska xukuumadda Soomaaliland dhawaan la gashay shirkadda Dubai World ee dalka Imaaraadka Carabta waxaana tilmaameen in heshiiskaasi faa'iido weyn ay ugu jirto dalka Soomaaliland sidoo kale waxay xuseen in heshiiskaasi furo u noqon doono in ganacsatada iyo daneeyaasha maalgashiga dunidu ku soo hirtaan arlada Soomaaliland maxamuud raage ibraahim agaasimihii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda oo shirkaasi jaraa'id ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay nuxurka heshiiskaasi waxaanu kale oo ka warramay faa'iidada dalka Soomaaliland ugu jirta heshiiskaasi waxaana ka mid ah hadalkiisii heshiiskii waxaa lagu qorayaa inay gelayso dawladda Soomaaliland iyadoo dawladda Imaaraadkuna ay og tahay lana gelayso Dubai Port waxaynu doonaynaa in caalamka iska iibino marka halka waxaa ka muuqata waad arkaysaan halka ay Soomaaliland gaadhay heshiisku ma dekada berbero unba dad badan oo Soomaaliland waxay u fahmeen in heshiiskan uu yahay dekada berbero qura wuxuu leeyahay heshiiskan waa multi sector agreement weeyaan multi sector agreement waa agreement ay hay'ado badan ay ka qayb qaadanayaan oo maxaa hay'adahaas ay uga qayb qaadanayaan heshiiskan wuxuu leeyahay to help grow of Somaliland in dhaqaalaha Somaliland uu kor u soo kaco economic ahaan across a number of the sectors including agriculture, ports, produce and tourism. waxaa ku jira agriculture, waxaa ku jira wadooyinka, waxaa ku jira beero. waa mashruuc u furaya il cusub qaranka reer Somaliland. علي دول أحمد oo isna halkaasi ka hadlay ayaa xusay in cid kasta oo reer Somaliland oo ka hortimaada heshiiskaasi ay noqon doonto cadawga Somaliland waxaana ka mid ah dalkiisii waxaan leeyahay dekada berbera cidii ka hortimaada cadawga Somaliland cidii inaga ah ka hortimaada ayaa cadawga Somaliland ka cadawsan sababtoo ah waxa ka howlgali doono ugu yaraan 20000 person ba ka howlgali doono 20,000 qof oo shaqaale ah ba ka howlgali doono oo mushaar wanaagsan qaado 1.6 billion dollar ayaa naga soo gali doonta sanadkii oo miisaaniyadeena kor ka mid noqon doonto oo dakhligeena ka mid noqon doonto guuleed cabdi xasan iyo cabdilaahi qarayaro iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay faa'iidada Soomaaliland ugu jirta heshiiskaasi hadday tahay dhinaca kobaca dhaqaalaha shaqo abuurka iyo arrimaha la xidhiidha